السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal kale oo xiiso badan kaas oo aynu kaga hadli doono habka loo barto video editingka sidoo kalena lagu doorto softwareka kugu habboon ee aad markaa isticmaali karto. Si aynu videogeena u bilaabano muuqaalka xaqiisa si aynu bilaabno. Haddaba daawade marka aad doonayso inaad video editing barato waa in aad marto 4 jaranjaro ama 4 step oo kuu fududeynaya in aad noqoto full video editor ama professional video editor. Haddaba markaad u baahan tahay 4 step waxay kala noqon doonaan ka koobaad oo ah planning qorsheyn. Waxaad qorsheynaysaa xilliga oo aad baran lahayd dhaqaalaheedii inaad hayso wixii lagaga baahnaa video editing in aad haysato. Sidoo kale haddii uu kaga baahan yahay allahu mustacaan barasho aada inaad siiso. Stepkeena labaad wuxuu noqon doonaa foundation ama baseka video editing. Inaad barato video editingka basekiisa waa lagama maarmaan. Waa in aad barato video editingka basekiisa sida tusaale ahaan in si muuqaal loo jarjaro, sida muuqaal transition loogu daro, sida muuqaal animation loogu daro. That is basic. Waa in aad barato basica. Sidoo kale markaad basica baranayso waa inaad xoogga saarto tuulasha aad isticmaalayso. Hadda marka aad foundationka ka soo gudubto oo aad iska soo dhisto seeska video editingka. Marka guri la dhisayo waxaa laga bilaabaa seeska. Marka seeska video editingka iska soo dhisto waxaad u soo gudbi doontaa stepka saddexaad. Stepka saddexaad oo isaguna ah stepka saddexaad ee kuu fududeynaya kuna noqon karto professional video editor. Sidoo kalena laga weydiin karo video editingka waxyaabo badan oo ku noqon kara khabiir. Wuxuu noqonayaa stepka saddexaad dooro softwareka kugu habboon. Waxaad software ka eegi kartaa tusaale ahaan free inuu yahay, featureski aad isticmaali lahayd inay ku jiraan, sidoo kalena in uu leeyahay templates qurux badan. Software ku dooran kartaa iyo wixii kale ka badan ee markaa ku dooran karto software. Waxaa jira software badan oo lagu edit gareeyo tusaale ahaan qaabka Premiere Pro, DaVinci Resolve iyo Final Cut. Marka softwareki kugu habboon waa inaad doorato. Haddaba markaad stepka saddexaad ka soo gudubto waxaad u soo gudbi doontaa stepka afaraad ahna ka ugu ballaaran ee haddii aad noqonayso video editor ama professional video editor. Waxaan qoran karaa wuxuu noqonayaa stepka afaraad khabiir ku noqo softwareka dooratay. Tusaale ahaan iminka waxaad dooratay appka Premiere Pro. Waa in aad ku noqoto khabiir si aad u taqaanay ama dadka kale u yaqaanaan si ka xeel dheer. Waa in aad u taqaano Premiere Pro si aad ugu edit garayso videoyo aanay dadka kale ugu edit garayn sidaada oo kale. Haddii aynu halkan isla soo gaarnay daawade waxaan si fadlan ka codsanayaa inaad videoga subscribe tiraa, like-na tiraa. Video kan ka xiiso badan intaynu isugu iman doono fi amaan illah.